bismillahi raxmaani raxiim. maansadan magaceeda waxaa la yidhaahdaa dhaqankaaba. dhaqankaabi waa inan ka mid ah hablaha soomaaliyeed. sida aynu wada ognahay, casrigan aynu joogno dhallinyaradeennu ama ummadda soomaaliyeed baan idhaahdee intooda badani waxay xiiseeyaan inay ku daydaan dhaqamada shisheeyaha inooga soo gudbiyaan afkaartooda, marba tallaabada cusub ay keenaanna ku dhaqaaqaan, gaar ahaan inteenna baraha bulshada wax ku baahiya. haddaba dhaqankaabi waxay inala wadaagtaa oo kaga duwan tahay mujtamaca kale hidaheennii iyo dhaqankeennii aynu dhaxalka u lahayn. waxaanan odhan karaa dhaqankaabi waa inanta qura ee inagaga hadhay noloshaynu hantida u lahayn. sidaasaan ugu haneeyey maasadan anoo uga dhigayo dhiirigelin, waanay naga mudan tahay inaynu ku dhiirigelinno, kuna abaal marino, kagana dayanno dariiqada aynoo jeexday. sida dayax awooddiisa intuu oogay nuurkiisa 14 jooga, ama waaga amintiisa cadceeddoo ilayskeedu dhulka soo abbaarayo, inan yahay iftiinkeedu indhahayga soo jiid, inan yahay ammaantii leh xuralcayntii lagu uumay, jannadii udgoonaydii quruxdii adduunkoo dhan ifka loogu soo saara, inan yahay ilwaadkeedu uumiyaha dhammaantiiba ashqaraarka ku abuura, qof kastoo ku eegaaba sida ubaxa kuu daaway. israaca haybtaada marka loo abtirinayo, inan yahay abqaalkeedu afrikaan ka siidhaaye asal dhaladka soomaali hiddaheedu ku aroora, inan yahay ilqabadkii leh midabkii astaantooda uu ahaa hablaa geeska, inan yahay casaan aada aan ahayna midabkeedu maariin ku eekaado, kuwii bilicda intukaano laga soo adeegayo alaab suuqa taalmoodi iibku waayo dheehaada, alle iyo rasuulkiisa ashahaadateyn-kooda salaadoo la oogayo, sakadiya adduunkeeda iyo soonka amarkiisa xaramkaada jiibayso haddii aad awoodayso, aasaas 5 tiira rukunada ahaa diinta, iyo waa islaamnimadu adoo qira arkaantooda 6 qodob ee iimaanka, inan yahay intoodaaba laga helay afkeedii gobannimiyo ehelkeedu alla kacabsi ku ammaana farxadi waata ku agtaada, inan yahay akhlaaqdii leh dhaqankiiyo asluubtii leh garashiyo aqoontii leh edabtiiyo xishoodkii leh anshixiyo hanaankii leh usha dherarka jooggii leh dunaday kubqaadkii leh asturnaanta sharaftii leh hindisaha odoroskii leh aragtida hankoodii leh arxankiiyo dulqaadkii leh qalbi uursamaantii leh hablii oosha soomaali ku sugnaa ardaagooda intaynaan magaaloobin, inan yahay addeecii leh ixtiraamka kii waali, inan yahay afkaartii leh hablii geela ugubkiisa laga dhiibi jiray aydin iyo faras ashkirihiya, inan yahay asaageedii ilbaxnimo u jaan qaaday yana in ka dheeraatay inaad tahay dhal iimaan leh eegan laysla wada qaaday, isha kulanka soomaali uga soo if muuqaagu sida olol hilaacaya, adigaale dhaqankaaba sharaf iyo ammaan buuxda, hooyadii akhlaaq fiican kugu ababisaa guulle mahad iyo abaalkeedna aabbihii ku dhalay baale, indha deeq ilwaad nuura oon tira lardaaweeya, agab weela dhaqankaaba afka hooyo nooleeya, hiddaheenni laga oolay dibi soo irmaaneeya, ashqaraarka quruxdaada ku arkaaba la ilmeeya kuma gaba ayaankaaba, nin ogaasa mooyaane niman loo ilbixinayna calafkiisu kaa oodan, isha doqoni kaa daahan ibtiliya dhib kaa dayran, taybleysku kaa naaran balaayada waxaafayse kaa xidhan albaabkeeda, ifka sama ku raaxayso aayatiinka noloshaada istareex mid ku ahaataa ilaahay ha kaa yeelo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.